shantii laga ducaysan jiray ayaana asiibtay. mahmaahda shanleyda loo yaqaan ee awowayaasha Soomaaliyeed ay nooga tageen ayaa waxay oranaysaa shan balaayo Allah laga magan galaa, caro aan laga soo noqon, ceer aan laga dhaqan, colaad aan laga heshiin, cudur aan laga boogsan iyo cilmi aan lagu intifaacin. runtii xaaladda maanta aan ku jirno waxaad moodaa in shantiiba ayna haleeshay. colaadii dagaalka sokeeye ayaa u horseeday is-aqbalid la'aan, is-aaminid la'aan iyo isu tanaasulid la'aan. dhibaatada ugu weyna waxay ka dhacday markii nabarkii dagaalka sokeeye oo aan si fiican loo daaweyn, oo aan si fiican leysku xaalmarin, ay siyaasiyiinta kaliya kuraasta ku heshiiyeen. nabarkii beelihii culoobayna sidaa ayuu ku sii xumaaday. taas ayaa sababtay in siyaasaddeena noqoto mid cakiran oo qaba cudurkii ahaa aan wax khalano mindiyahana kala qarsano. waxaa maanta lagama maarmaan ah inaan la imaano caqli wadareed oo caafimaad qabo oo aan ku daweyno caabuqa siyaasadeed ee dalka ka jira. runtii maanta waxaa nagu soo wajahan isbeddelo iyo mawjado siyaasadeed iyo dhaqaalaba oo aad u weyn oo gaar ahaan dhanka bariga dhexe, geeska Afrika iyo qaaradda Afrika guud ahaan. sida kaliya oo isbeddeladan nagu soo socdo aan ula jaan qaadi karno ugana badbaadi karno khatarteeda waa in aan marka hore tagtadii dagaalka sokeeye dayno, si aan isku dayno timaadadana si qalbi furan aan u ogaano. maxaa yeelay tagtadii haddii lagu mashquulo waa anagiyoo gaari wadayna oo horena u socono laakiin muraayadda gadaal aan fiirinayno. taasna waxay keenaysaa shil aad u weyn oo dalka kooma gelin karto. marka ilaahay hanaga koriyo koomo kale oo dalka Soomaaliyeed oo galo intaana ku filan. ilaahay tawfiiqdana waafajiyo. waa walaalkiin Baazi Basuri iyo barnaamijkii horumar ummadaada ee maalinta Isniinta iyo Khamiista.